بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. weli waxaan ku wada jirnaa barnaamijkii waxaan kasoo hadalnay tenniska afraad ee ah simple feature tennis. waan kasoo sheekeynay wuxuu ka hadlo iyo waxyaabihiis dhan waan soo qeexnay examplihiisa formula oo ku shaqeeyo waan kasoo hadalnay. maanta waxaan rabnaa access inaan xalino oo ku saabsan tenniskaasi aan rabnaa inaan dhag ka siino, balse inta aan u guda galin accesska janalku waa janal cusub. haddii uu yahay markii koowaad ee janalkan aad daawato, fadlan ha ka baqiilin subscribe, share, like intuba dhag noogu sii si adigana aad u hesho casharo grammar, tennisyo iyo jidjaad dhammaan oo adiga ku xiisi geliya, si aad u noqoto arday ka diyaarsan dhan kasta. haddii ahaan lahayd dhanka tennisyada, haddii ahaan lahayd dhanka practice-ka, haddii ahaan lahayd dhanka grammarka, intuba waxaad ka heli kartaa janalkan ee engineer maxamed ibraahim cumar. Okay, waxaan ku guda jirnaa tenniska afraad ee ah simple feature tennis. waan kasoo hadalnay waxaan dhahnay simple feature tennis wuxuu ka hadlaa fal dhici doona ama dhacdo dhici doonta ayuu ka hadlaanaan, waan soo sheegnay. maanta waxaan rabnaa accesska ama accessyo ee ku saabsan tenniskaasi inaan xalino aan rabnaa. marka ilaa tennis kasta wuxuu leeyahay access oo leeyahay. haddii ahaan lahayd access oo English oo tennis ah loo bedela tennis kale, iyo haddii ahaan lahayd idoo Soomaaliya loo bedelayo dhacdadaas Soomaaliga ah tenniska u qalma ama tenniska uu yahay aniga u bedelino. sidoo kale waxaa jiri doonto accessyo banaanka ah oo dhammaan tennisyada dhan loo wada bedelayo oo banaanka ah oo mar lis weydii doona jirto aan xali doono. ilaa hal example ama hal sentence la soo qaadanaa, kadib waxaa loo bedelaa dhammaan tennisyada tennis 1, tennis 2, tennis 3, tennis 4, tennis 5, tennis 6, tennis 7 ilaa hal tennis aan soo qaadanay aa loo bedeli doonaa. haddii aan la Soomaali idoo Soomaaliya lagu soo qaado lagu dhahaa u bedel dhacdada Soomaaliya tenniska Soomaaliyaas uu yahay u bedel, kadib Soomaali lagu soo qoray oo lagu dhahaa u bedel dhacdada tenniska uu yahay u bedel. marka u bedesho kadib waxaa loo leeyahay tennisyada kala dhiman ama 4 tennis ama 5 tennis ama 6 tennis, hadda waxaan marnaa tenniska afraad waxaan soo qaadanay 3 tennis aan soo qaadanay u bedela lagu dhihi karaa. Okay, marka hadda waxaa noo qoran 4 example aan noo qoran 5 example aan noo qoran oo tennis ku saabsan. access koowaad wuxuu leeyahay the people are taking the money. the people dadku are taking waxay qaadanooyin the money lacagta. awal hortkood inta aanan bedelin waxaan fiirinaa tenniskuu yahay. markaan ogaado tenniskuu yahay kadib waxaan leeyahay dhacdadeewa dhacdadan goormee dhacaysaa. markaan fahmo way sahlaanay marka inaan tennis kale u bedelo way sahlaanay. balse haddaanan fahmin tenniska hadda ii qoran ama accesska hadda ii qoran san tenniskuu yahay haddaan fahansaneen, kadibna dhacdada ay ka hadlayso dhacdada uu yahay aan fahansaneen kama shaqayn karo. laakiin muhiimaddu waxaa waaye inaan fahmo tenniska ii qoran tenniskee waaye, dhacdado ka hadlayn dhacdee waaye, kadib aan ii fududaanay inaan tenniska lii diray inaan u bedelo. Okay, hadda wuxuu leeyahay marka the people dadku are taking waxay qaadanooyin the money lacagta. tenniskee waa ila tennis kasta waxaan dhahnay waxa kugu cadeyna oo lagu garanaya sax. tennisku hadduu yahay waxaa jira wax oo lagu gartaa jirto tennis koowaad, tennis kale hadduu yahay sidoo kale waxaa jirto wax lagu garto tenniska labaad, tennis saddex hadduu yahay waxaa jirto wax lagu garto. waan soo sheegay ilaa waxaan ku dhahay tennis kasta laba mid lagu garan karaa hebel iyo hebel aan ku dhahay waana soo sheegnay. marka tenniskan tenniskee waa awal horta waxaan ka fiirinaynaa subject waan ka fiirinaynaa, auxiliary waan ka fiirinaynaa, verbka waan ka fiirinaynaa, business ka fiirinaynaa. anaga subject xataa ma u baahno, waxaan u baahnaa waxa kaliya kow auxiliary iyo laba verbka u baahnaa bis. hadda noo fiir marka auxiliary meesha ku dhex jira muxuu yahay r waa r na yaa ku shaqeeya micnaa tenniskee r iyo waxaas la siiyaa yaa la siiyaa tenniska koowaada la siiyaa. verbka soo aad verb tag waa maxaa raacsan ing iyo r tenniska ku shaqeeya. haddii auxiliary mar r ay noqoto ilaa waxaan soo aragnay am is r aan soo aragnay sax, ing na u jeednaa. haddii labadaas oo isla socdo aan aragnay sentence inuu yahay jumlad iska caadi u yahay, tenniskaas maxaa leenahay waa tennis koowaad oo ah present continuous tennis waa.
inuu present continuous tense yahay maxaan ku garanay? Waxaan ku garanay art auxiliary ah. artan ku garanay. arna waxaan ku shaqeeyo markii la joogo tenniska waada ar ku shaqeeyo. Tenniskana waa jumla iska cad ama affirmative ama statement waay. verbkan maxaa raacsan? ing raacsan. So that marka waxaan leenahay tenniska hadda noo qoran waa tenniska koowaad waa leenahay marka. Okay, dhacdiisna aan fiirina marka. waxaan oolaa the people dadku are taking waxay qaadooyin the money lacagta. dadku waxay qaadooyin lacagta. goormay qaadooyin? hadday qaadooyin just now hadday qaadooyin. marka maxaan ku cadeynaa marka inuu tennis koowaad yahay. marka aan u bedelno tenniska afraad aan u bedelno hadda aan ku jirno dhacdo dhici doonto aan ka dhigin. hadda waxay tahay dhacdo dhicus waa aan ka dhigno dhacdo dhici doonto future dhici doonto. hadda waa dhacdo now dhicus ama just dhicus aan u bedelno dhacdo future ama tomorrow dhici doonto. Okay, maxaa leenahay marka the people dadka weligaa subject siisu soo qaado. subject object siisu soo qaado. verb not siisu soo qaado. maxaa leenahay the people are maxaa loo bedelaa tenniska afraad maxaa ku shaqeeya will iyo shall. maxaa siiyana marka will macnaha the people will taking macnaha maya not you can't say. maxaa yeelay tenniska afraad verbkiisa kuma shaqeeyo wax ing ah. ing keli waxaa ku shaqeeyo aan kusoo aragnay tenniska koowaad inuu ku shaqeeyo aan soo aragnay sax. ing the tour maxaa leenahay marka the people will take bisalena bis. artna waa tuureynaa ing ne waan tuureynaa ilaa anagana mana quseyso tenniskana ma quseyso. the people will take the money maxay noqonay marka dadku waxay qaadan doonaan lacag. asalka hore maxay dadku waxay qaadanooyin lacagta. waxaan ka dhignay dadku waxay qaadan doonaan lacagta. the people will take the money. Okay, iyadoo saas ah oo noo tahay the people are taking the money ay noo tahay aan u bedelno tenniska labaad aan ka dhigno maxaa leenahay the people take. takes maxaa dhiwaan ma dhihi karna ilaa subject meesha yaala wuxuu nu yahay noun oo plural ah jamc dadka ah looga. so that marka waxaa leenahay the people take the money dadka waxay qaadaan lacagta. tennis saddexaad ka dhig the people took the money. took maxaa u isticmaalay ilaa tenniska saddexaad verbkiisa waxaa la isticmaalaanaani past. maxaa marka the people take maxaa waay took maxaa noqon the people took the money dadku waxay qaadeen lacagta. afraad dadka kan maxay noqotay the people will take the money dadku waxay qaadi doonaan lacagta. okay, waxaan fahmaa sentenceskaas koowaad inaan fahnay. midka labaad muxuu leeyahay we played we anaga played waxaan ciyaarnay the football kubadda cagta aan ciyaaran marna. wuxuu dhahay anaga waxaan ciyaarnay kubadda cagta. we anaga played waxaan ciyaarnay the football kubadda cagta baan ciyaarnay marna. goormay ciyaareen? tenniska horta waa tenniska saddexaad. maxaan ku cadeynayaa verbka la isticmaalaa wuxuu yahay verb past ed la raacsiiyay marka played ee noqotay. maxaa la marka inuu yahay tenniska saddexaad inuu yahay. waxaa la we played the football anaku played waxaan ciyaarnay the football kubadda cagta baan ciyaarnay boodha. marka aan ka dhigna tenniska afraad maxaa noqonaa marka we anaga will ma la siiyaa not ilaa waxaan tenniska afraad wuxuu ku shaqeeyaa will iyo shall yaa ku shaqeeya I iyo we. will yaa ku shaqeeya inta kale ku shaqeeya sax. buugta qaar waxaan dhahnay will ahaan balse buugta kalena shall we iyo I shall ku shaqeeyaan. marka waxaa raacayna inta badan shall la isticmaalaa marka anaga waxaan raacaynaa buugta shall willna u baro shallna u baro marka. okay, maxaa leenahay marka we shall play ed waa tuureynaa we shall play the football anaku shall play waan ciyaari doonaa baa tiri the football kubadda cagta baan ciyaari doonaa baa tiri. we shall play the football waxaan ciyaari doonaa baa tiri kubadda cagta. okay, midda saddexaad I anigu and you iyo adiguba take the paper waan qaadanaa baa tiri the paper exam warqadda imtixaanka waan qaadanaa baa tiri every day maalin kasta. waxaa tiri aniga iyo adiguba waan qaadanaa baa tiri warqadda imtixaanka maalin kasta. tenniska labaad waxaa ku cadeynaysa every day ku cadeyn ad wax kale afiirin every day ku cadeynayso. verbna taaga s maxaa loo darwa sababta s loo darwa waxay tahay ilaa meesha maxaa taalo laba wata laba falagood lama jamc waa
I and you aa laleeyahay marka. Okay, aan ka dhigno marka tenniska hore maxaa leenahay I and you ani iyo adiguba will take waan qaadan doonaa shal maa dhaha not maxaa shal u dhiiwaaya ilaa ay kala de ahleed shalaan sii lahaa hadda maxaa soo raacay you waa soo raacay marka jamac waa maxaa dhaha marka will aan dhaha marka maxaa dhaha I and you will take the proper exam everyday maxaa ku bedelaa tomorrow ilaa everyday waxay ku shaqaysaa tenniska labaad ay ku shaqaysaa marka tenniska afraad waxa adverb of time u ah tomorrow ah maxaa dhaha marka I anigu baa tiri and you iyo adiguba will take the proper exam tomorrow aniga iyo adiguba baa tiri waxaan qaadan doonaa baa tiri warqadda imtixaanka berito I and you will take the proper exam every day aniga iyo adiguba waxaan qaadan doonaa baa tiri warqadda imtixaanka berito waxaan filaa inaa fahamnay ilaa tennis kasta adigu waxaa fiirinaysaa maraa kuusha waxaan sheegay waxaan dhahay auxiliary iyo verbka intaba fiiradaa subject adigu u eegaayo okay su-aasha afraad maxayna leedahay she is cleaning her house iyadu waxay nadiifinaysaa gurigeeda baa tiri she is cleaning she ayadu is cleaning waxay nadiifinaysaa baa tiri her house gurigeeda tenniska tennis koowaad maxaa noo caddeynaya auxiliary is ah iyo verbka angel raacsiiyey taas noo caddeynaya marka okay aan u bedelno marka afraad tenniska afraad simple future tennis ka dhigno maxaa la she will allah she will clean ing da bix she will clean her house iyadu waxay nadiifin doontaa baa tiri gurigeeda baa tiri she will clean her house waxay nadiifin doontaa gurigeeda su-aasha ugu dambeyso maxaa dhahani did the teacher ask us the question did the teacher miyuu macalinka baa tiri ask us na weydiiyey the question su-aasha miyuu macalinka na weydiiyey su-aasha tenniska waa tenniska saddexaad waa loo jeedaa waa simple past tennis waa ila dhidaa loo jeeda iyadoo su-aal ah waa dhidaa loo jeedaa okay aan ka dhigno tenniska afraad maxaa marka meesha dhid maxaa loo bedelaa will loo bedelaa maxaa lahaa will the teacher ask us the question miyuu macalinka na weydii doonaa su-aasha baa tiri will the teacher ask us the question miyuu macalinka na weydii doonaa su-aasha baa tiri will the teacher ask us the question miyuu macalinka na weydii doonaa su-aasha baa tiri okay marka exerciska intaasuu ahaa hadda marka waxaan rabnaa hal su-aal inaan soo qaadano oo inta aan kasoo dhexbaxsano inta aan kasoo dhex bixiyo kadibna aan rabaa inta tennis aan soo qaadanay inaan u bedelo waxaan soo qaadanaa she is cleaning her house su-aasha afraad she is cleaning her house iyadu waxay nadiifinaysaa gurigeeda aan rabaa inaan saddex tennis kale inaan u bedelaa rabaa ilaa tennis waa laba tennis inaan ka dhigaa rabaa bis oo ah labaad iyo saddexaad inaan u bedelo okay su-aasha labaad tenniska labaad aan ku hormar maxaan dhahaa she cleans her house she ayadu cleans waxay nadiifisaa baa tiri her house gurigeeda maxaan verbka s aan u raacsiiyey verbka waxaan is u raacsiiyey waxay tahay tennisku waa tenniska labaad tennis labaad waxaa lagu garanaya waxay ahayd verbka wuxuu ku shaqeeyaa s goorma ku shaqeeyaa markii jumladu ay tahay hadal iska caadi ah eena subject uu meesha uu yahay subject mid singular ah kaasa subject singularkiisa oo markuu yahay hadal caadi ah verbka waxa la raacsiiyaa marka la joogo tenniska labaad s la raacsiiyaa verbka saasa marka s ku raacsiiyey maxana marka she cleans she ayadu cleans way nadiifisaa baa tiri her house gurigeeda goorma nadiifisaa everyday markasta nadiifisaa okay saasa labaad u fahnay saddexaad aan ka dhigno maxaa la dhahaa she cleaned maxaan ku daraa ed aan ku daraa ilaa maxaa waa kuwa joogtada ah maxaan ku daraa marka she ayadu cleaned way nadiifisay baa tiri her house gurigeeda mar waxaan dhahay iyadu way nadiifisaa gurigeeda marna waxaan dhahay iyadu way nadiifisay gurigeeda marka waxaan ku cadeynaa laba jumlad in laba tennis aan isticmaal inay yihiin mid tenniska labaad iyo tenniska saddexaad mid waa simple present tennis midna waa simple past tennis waa marka tennis kasta marka exercise lagu soo qoro oo loo dhaho tennis hebel u bedel kood waa inaad fahamsan tahay tenniska kuu qoran tenniska uu yahay dhacdada uu yahay kadib waa u bedeli kartaa tennisyada lagu diray
tenniska oo koowaad ii qoran she is clean her house ii qorneed waxaa la yidhaha u bedel tenniska labaad. Horta waa inaan fahmaa tenniska ii qoran muxuu yahay. Markaan fahmo kadib waan u bedelaa tenniska oo lii daray. Balse kooda inta haddiisan aan fahmin tenniska ii qoran oo lii daray oo ii qoran aan fahansanayn uma bedeli karo tennis kasta. Balse haddaan fahansanahay tenniska oo ii qoran aan fahmo tennisyada kale waan u bedeli karaa. Li'aanna waxaan ka fiirinaa tenniska ii qoran waxaan ka fiirinaa waxay tahay subjectiga iyo auxiliary iyo waxa verbka ka fiirinaa. Kadib waxaan fiirinaa dhacdiisa fiirinaa. Kadib tenniska u bedel lii dhahay way ii fududaanaa markaas aan u bedelo waana fahmi karaa. Balse haddii tenniska ii qoran aan fahansanayn kama shaqayn karo tenniskana uma bedeli karin. Maybe in aan qaldo saaidna aan u qaldo. Balse markaa fahansantahay tenniska kuu qoran mana qaldi kartid waana fahansantahay. Markii tennis kasta lagu qoro hadduu ahaan lahaa af Soomaali iyo hadduu yahay mid English oo tennis kuu qoran lagu dhaho tennis kale u bedel. Kooda waa inaan fahantaa tenniska kuu qoran tenniskuu yahay dhacdaduu yahay. Kadib markaa fahantid intaas markaa fahantid kadib waa bedeli kartaa waana kuu fududaanaysaa u bedesho. Balse hadaa fahmin tenniska kuu qoran tenniska uu yahay ma bedeli kartid mana fahmi kartid. Markasta waxa lagu qoro tennis lagu qoro loo tennis for example waxa lagu qoro tennis koowaad u bedela loo tenniska labaad. Waa inaad fahmi kartaa tennis kuu qoran inuu yahay tenniska koowaad aana u bedelis tenniska labaad. Tennis afraad kuu qoran waxa loo bedel tenniska shanaad. Waa inaad fahmi kartaa tennis kuu qoran inuu yahay tenniska afraad aana u bedelisid tenniska shanaad. Marka tennis kasta access kasta oo tennis ku saabsan lagu dhigo oo lagu u bedel tennis hebel ah. Adigoo su'aalin kooda fiiri horta fahan tenniska kuu qoran tenniskee waa dhacdo ka hadlaa kadib bedela marka. Balse haddaan intaas tan aan fiirin wax iska shaqaysatid maybe 100% waa qaldi. Aad iyo aad u qaldi. Ilaa ma fahansid tenniska kuu qoran ma fahmin. Marka isku day tennis kasta kuu qoran oo lagu u bedel tennis hebel kooda inaan fahantaa tenniska kuu qoran. Kadib waa ka shaqayn kartaa. Laakiin haddaan fahansanayn ma ka shaqayn kartid. Marka tennisyadu waa aad u fududiin Soomaaligana dhacdo bisa ka fiirin hadalka. For example waxaan anigu waan sameeyaa gaariga baan yiri. Maxaa marka maalin kasta sameeyaa. Kadib waxa bedelo waxaan fahmaa markaan arko oo Soomaali aan fiirino anigu waan sameeyaa gaariga. Isla markaa waxa ku soo dhacay tenniska uu yahay tennis class. Isla markaa waxaan arkaa anigu shaqaystaan arkaa oo boobsiyay. Balse haddaan fiirin oo si fiican u fahmin kama shaqayn karin. Markasta markaa tennis kuu qoran yahay waxa loo fiiriyaa tenniska kuu qoran tenniskee waa. Kadib waa kuu fududaanaa marka. Marka waxaan fahmaa afartaan xabo inaan fahnay aan isku day doono adigana ka dhax baxso tennisyada kale ku bedelo tennisyada hadda aan soo aragnay aan soo fahnay ku bedel marka cashirkeena halkaas buu ku eg yahay. Fadlan channelku waa channel cusub haddii uu yahay markii koowaad ee aad daawato channelkani fadlan ha ka baqiilin macalinka ha loo cimaamado fadlan subscribe share like intaba dhag loogu siiyo si isagana uu yeesho dhiirigelin adigana aad u hesho casharo iyo grammar iyo tennisyo iyo practice ku xiisa geliya insha Allah.